Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada saaxiibayaal. Maanta waxaanu ka hadli doonaa 5 aroos oo Soomaalida muran geliyay ama hadalhayntoodu badatay. Runtii Soomaalida ayaa ku kala aragti duwan guurka dadyoga kale ama qowmiyadaha kale. Marka wiil ama gabar Soomaali ah uu guursado qof aan Soomaali ahayn, waxaa bilowda hadalhaynta baraha bulshada. Runtii 5taas aroos ee Soomaalida muranka badan geliyay ayaynu rabnaa maanta in aynu halkan idinkula wadaagno saaxiibayaal. Arooska koowaad Ilhaan Cumar iyo Team Menet. Xiriirka haasawo ee Ilhaan Cumar iyo Team Menet ayaa soo shacbacay sanad ka hor kadib markii xaaska ay wada joogeen Menet oo lagu magacaabo Beth Menet oo 55 sano jir ah ay dalbatay furiin. Menet ayaa haatan Ilhaan Cumar u qaabilsan dhanka ololaha doorashada. Warbaahinta Fox News ee dalka Mareykanka ayaa ku soo warantay bilooyin ka hor in xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka Koongareeska Mareykanka lagana soo doortay Minnesota ay shaacisay inay aroosatay. Ilhaan ayaa barteeda Instagram ku soo dhigtay sawir iyada iyo saygeeda Team Menet. Team ayaa horey u ahaa la taliyaha Ilhaan Cumar ee dhanka siyaasadda. Sidoo kale bishii Oktoobar ee sanadkii hore, Ilhaan Cumar ayaa dalbatay inay kala tageen saygeeda hore ee Axmed Xirsi. 3 caruur ah ayay isu dhaleen. Axmed Xirsi ayaa dhowr bil kadib isna ku aqalgalay Soomaaliya. Xiriirka guur ee Ilhaan Cumar iyo Team Menet waxa uu u burburay si aan ka soo kabasho lahayn. sidaas waxaa lagu sheegay dacwadda ay maxkamadda Minnesota u gudbisay Ilhaan Cumar. Waxay Ilhaan Cumar sheegtay inay raadinayso sharci ilaalinaya carruurta, waxayna maxkamadda weydiisatay inay u ogolaato qaab sharciga waafaqsan oo si wadajir ah loogu hayo 3 cunug ee ay soo dhaleen. Arooska labaad Idris Elba iyo Sabrina Dore. Runtii guurka lamaanahan ayaa dhaliyay hadalhayn iyo muran badan ee dhanka baraha bulshada ah. Idris Elba iyo Sabrina Dore waxa uu arooskooda ka dhacay hoteelka Mandarian ee dalka Morocco bishii Abriil 2019. Xafladda arooska markii ay dhacaysay, Sabrina Dore waxa ay soo xiratay dhar cad oo qoorta ka go'an oo ay caruusyadu xirtaan. Saygeedana wuxuu ku soo labistay suud madow, shaadh cad iyo tay madow, isagoo oo aad u dhool cadeynaya ayuuna ka qayb galay xafladdiisa arooska. Arooska saddexaad Ben Katile iyo Aamino Mudde bishii November ee sanadkii 2018 ayay ku aqalgaleen Nairobi dalka Kenya, balse hadda waxaa soo baxay inay kala tageen. Soomaalida dalka Kenya ayaa aad u hadalhaysa guurka dhexmaray wariyahan ka shaqeeyay TV-ga dalka Kenya ee lagu magacaabo KTN iyo gabadhan Soomaalida ah. Baraha bulshada ayaa aad looga sheekaysanayay guurka dhexmaray lamaanahan oo aqalgalay kadib markii ay muddo saaxiib ahaayeen, ilmana isu dhalay. Waxa ay ku aqalgaleen xaflad ay dad yar oo saaxiibadood iyo xubnaha qoyskooda ka mid ah ay ka soo qayb galeen, laakiin dood xoog leh ayay ka dhalisay dhanka baraha bulshada, taas oo sababtay in dadka si weyn ay uga kala qaybsamaan. Muddadii qarniga ahayd ee u dambeysay, Soomaalida waxaa la sheegaa inay si tartiib u dhexgeliyaan dadyoga kale. Guurka Ben iyo Aaminana su-aasha ugu weyn ee uu keenay ayaa ah sababta ay Soomaalidu guurarka qaarkood ugu arkaan kuwa caadi ah, halka kuwa kalena ay u arkaan inay lid ku yihiin dhaqanka. Arooska afraad Iimaan iyo David Bowie. Sahra Maxamed Cabdulmajiid oo loo yaqaan Iimaan ayaa ah gabar dharka xaysiisa. Waxay marka soo muuqatay heesta Michael Jackson ee Remember the Time ee sidoo kalena uu ku jiro jilaaga caanka ah ee Eddie Murphy. Iimaan waxay isqabeen heesaagii caankaha ee u dhashay dalka Ingiriiska kaasoo geeriyooday. Iimaan iyo David Bowie waxay isqabeen 1997 ilaa 2016 oo ahaa markii uu geeriyooday David Bowie. Waqtigaas ka hor Iimaan waxay isqabeen Spencer Hollywood oo ahaa ciyaartoy Mareykan ah oo ciyaari jiray kubadda kolayga, kaasoo ay isqabeen sanadihii u dhaxeeyay. Waxay isqabeen 1977 ilaa 1987. Haddeer ama iminka Iimaan waa 63 jir, waxayna haystaa 2 gabdhood. Arooska shanaad Dr. Xasan Shire iyo xaaskiisa Stella. Dadka magaca ku dhexla Soomaalida ee guurkooda ku faraxsan waxaa ka mid ah Dr. Xasan Shire, isagoo ku faraxsan guurka uu la yeelanayo gabar aan Soomaali ahayn. Dr. Xasan Shire Sheekh oo madax ka ah hay'adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika. Waxa ay isqabaan Stella Akatakunda. Muddo ka hor ayaa labadooda xaflad weyn oo aad loo soo agaasimay loogu sameeyay magaalada Muqdisho, kana soo qayb galeen asxaab badan iyo madax ka tirsan dowladda Soomaaliya. Runtii guursiga ajaanibta ma ahan wax ku cusub nolosha dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan marka laga eego dhanka isdhexgalka. Dadyoga dega xeebaha oo ka duwan kuwa dega deegaanada ee aan xeebaha lahayn ee u badan reer guuraaga
doodaha qaar inay noqdaan hadalhayn weyn ama muran badanba keenaan waxaa saamaxay amaba keenay dhanka baraha bulshada oo ah meelo ay dadku ra'yigooda kusoo bandhigaan. laakiin dhanka kale waxaa yar ama meesha ka maqan tixgelinta dooqa qofka iyo in loo arko in isagu uu yahay qofka leh go'aanka noloshiisa. intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa maanta saaxiibayaal, mahadsanidin.